gudida beesha bariga Burco ayaa kulan ay xalay ku yeesheen magaalada Burco ku dhawaaqay hoggaan cusub oo gudidaasi dooratay. Gudidaas ayaa dooratay gudoomiye ku xigeen xisaabiye afayeen iyo khasnaji. Cabdi Maxamuud Qolombi oo loo doortay afayeenka gudigaasi ayaa halkaasi ka akhriyay magacyada hoggaanka la doortay. waxa maanta shirweyne isugu yimid gudida guud ee beelaha habar jecel garadag kadib markii uu ka dhintay gudoomiyihii gudidaas Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye Maxamuud Maxamed Jaamac. gudidaas oo intii uu dhintay gudoomiyahoodii aan sameyn qaab dhismeedkii gudida ayaa maanta chance u heshay inay dib isugu yimaadaan sameeyaana maamulkii gudida. waxay gudidu u dooratay gudoomiye iyadoo ku ansixisay cod aqlabiyad leh. gudoomiye u dooratay Maxamuud Maxamed Jaamac. waxay gudoomiye ku xigeen u dooratay Cismaan Xirsi Jaamac. waxay afayeen u dooratay Cabdi Maxamuud Qolombi. waxay xogayo u dooratay Mahad Nuux Xuseen. waxay u dooratay khasnaji Maxamuud Xaaji Cali. waxaanu u sheegaynaa shacabweynaha Soomaaliland iyo xukuumadaba in ay soo dhaweynayaan gudida guud ee garadag in nabadda qarankeena wax laga qabto ayay hore nooga soo shaqeeyeen maantana diyaar u yihiin cid kastana gacmo furan ku soo dhaweynayaan. waxana ninka imka gudoomiye ku xigeenka loo doortay waxaan ka mid nahay gudida halkan waxa isugu timiyo arinta tan maanta shirkeedii koowaad in muddo aba isugu timiyo halka kan ma garanaysaa ay shir ku qabsatay gudidii garadag. ilaahay ka codsanaynaa in uu nala garab galo. waa gudidii garadag waa gudi hawlihii u yaalay uu nimankana hadii imakana u sii inay qabsato doonaysa shaqadeeda. dooranay gudoomiye aniga lay magacaabay. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawsha ay fududeeyo. waxaanu kale aan u sheegayaa beelaha haday tahay diriska haday tahay xukuumadda haday tahay xusbiyada qaranka inaanay ahayn arrin siyaasadeed aanan anagu gudi siyaasadeed ahayna gudi dhaqanahay laakiin mid walba waxa dee naga qabta ama aanu wanaag aan kula shaqeynayno haday beelaha tahay haday xusbiyada qaranka tahay haday xukuumadda tahay mid walba inaanu kula shaqeynayno arrinka ugu wanaagsan ee wanaaga keenaysa ee wax hore ugu marayaan ee dantu ku jirto taasaanu ku ballan qaadaynaa. Ibrahim Faarax Macaan iyo Honkey Bal TV Burco.